Somaliland أنا شرفت لبا طبعاً كي الصبح نما ساكا waxa laga yeedhay xarunta CID-da ama dambaarista magaalada Hargeysa waxa su'aalo badan laga weydiiyay guud ahaan daliilaha xukuumiga afka xusbiga ku hadlaya aan jeediyo runtiina wax meesha la yiraahdo dhibo aan kula kulmay meesha ma jirin taliyaha CID-da si sharaf leh soo dhaweeyay si sharaf leh su'aalaha weydiiyay su'aalihii wuxuu ku saabsanaayeen dhaliilaha uu jeediyo xukuumadda kulmiye 6 sanadood oo dambeeyay dabcan taana waxaan u haysanaa shahaado inaanu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aanu sheegno wixii jawaabana waan siiyay wuxuu aad dadka waxaan xantaynayaa oo iyaduna meesha ku jirtay arintii shalay aan ka hadlay oo ku saabsanayd anu deegaankan ka soo jeedo iyo dadkayga iyadan laftirkeedana su'aal bay iga weydiiyeen oo waxay igu raahdeen arinta tiri madaxweynuhu wuxuu yiri deegaanka Airbaan isaga taaglaay maxaad iyadana ku cadeynaysaa iyadana cadeynteedii gacantan ka saaray waanan u geeyay wayna iga qaadeen wax kale oo dhib oo jirtaana ma jirto wuxuu baa muuqataa in iska taawun intimidation ama cabsi gelin si mucaaridnimada kulul loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiye